الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا درسنا نوحك بالله ونيا سورة الكهف وسورة مكية وكمل قرآن كي سود دقي انتو سنبقوا سوه جروني صلوات ربي وسلام عليه سورة waxay ka mid tahay suuradaha fadaaisha goonida ay ku soo aroortay oo nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam akhrinteeda waxa ka sugan rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu yiri 10 aayadood ee u horeeya riwaayad kale waxay leedahay 10 aayadood ee u dambeeya ruuxii akhriya Allah subhanahu wa ta'ala fitnada dajjal buu ka ilaaliyaa waxa kale sugan nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu akhrin jiray maalinta jumcada ummadana uu jideeyay waxa kale sugan nin saxaabi oo akhrinaya inay sakiinadii ku soo degtay oo xadiiskii dheeraayadana ayaa ku tusay fadaa'il badan bay marka suuradu leedahay suuradu sida suuradihii makkiga ahaaba ay dabeecadoodu ahayd waxay ka hadlaysaa mabaadi'da waaweyn ee diinta islaamku ay ku taagantahay tawxiidka iyo soo saaridda iyo aakhira iyo qadaayaadkaas ilaahay kutubta soo dejiyay iyo arrimahaas ay ka hadlaysaa waxay caan ku tahay qisooyin dhowr ah ayaa dhexdeeda ku soo aroray qisada u horeysa nimankii dhalinyarada ahaa qisadooda oo inoo imaan doonta insha Allah tacaala ay ka warantay qisadii nabi Muuse calayhi salaam iyo Khadir ayadana way ka hadashay qisada kale ka hadashay waa qisadii Dhulqarnayn ninkii dhulmareenka ahaa isagana qisadiisa ayay ka hadashay saddexda qiso waa khaas bay la tahay meel kale oo quraanka lagu faahfaahiyay ma jirto amthal iyo tusaalayaalna waa lagu samayn doonaa oo rabbi subhanahu wa ta'ala tusaale laba nin mid gaal ah iyo mid muslima mid mu'mina ayaa tusaalahooda leena siin doonaa oo iyaguna qaab qiso loo sheegi doonaa suuradu waxa kale ka hadli doontaa maalinta qiyaamada iyo isbedelka ku dhici doona ifka markay qiyaamadu timaado iyo dadku say u qaybsami doonaan ahli janno iyo runaa سيشا وين بمعنى سورة كاليس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مهد لله إله بأسكله الله أسقناتي الذي الله سوى أنزل دجي على عبده أدون كيس كور كيس كسو دجي الكتاب كتاب القرآن كه ولم يجعل والحال لم يجعل إسوان يلين له كتاب كأنه يلين عوجا وحق الله قيما كيالي كتاب قيما متوصا كيالي أما قيما حالو يهمتوصا محوه سودة شيء لينذر إنو ديغا درادت بأسا باس شديدا أو أدك أو من لدنه أكتس كأحد لب أدك أو أكتس يالي inuu uga digo daraadeed adoomada iyo way yubashira inuu bishaarayo daraadeed alladina kuwa yacmaluuna sameeya as-saalihaati a'maashan wanaagsan kuwaana inuu ugu bishaareeyo anna lahum inay leeyihiin ay u sugnaatay ajran ajr inay leeyihiin xasanan oo wanaagsan maakithiina xaalayihiin kuwa kunagi fiihi ajrka wanaagsan dhexdiisa abadan weligood bay igu kunagi سورة السادة والكتاب الله سبحانه وتعالى وحكم أكوش يعني كوب الله إنه الله إسأمان وإسمه هذيه سورة الدور القرآن كم إذا أي لم يتهي ورب سبحانه وتعالى وكوب الله إنه إسمه هذيه وما هذا ودن يسوي له أمان ودن مدين هي صوت الوحوي لو الشيء مدبر لسوء أمانة يو شيء يقولون إسكاء أمانة هي كمال ليه والله أمانة كمال ودن إله بس كله سبحانه وتعالى لما استدان عند إمران الله إنه أب الله إن الله يسكله تلوات وحكستو الله يستو والنعمة والله يسوء أمانا الله يسكله بحيه سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وحكستو الله يستان الله ينسيه سبحانه وتعالى مركا أمانا دن iyo xamdi oo dhan ilaahay baa mudan subhanahu wa ta'ala
xamdigaas alle uu mudan yahay isaguna waa is ammaanaya innagana waa ina baraya innagana wuxuu ina baraya qaabkaan rabbigan u mahadin lahayn subxaana wa tacaala waxyaabaha ilaahay aan ku mahadinayna waxaa ka mida marka nicmooyinku inoo galay nicmooyinkii uu inoo galay tii ugu weynayd baa la xusay marka oo maxay tahay waa kitaabka la soo dejiyo inuu ilaahay nebi maxamed sal lla alay wasalam dushiisa kusoo dejiyey kitaabka qur-aanka haddana kitaabkii qur-aanka uu ka dhigay mid toosan oon qallooc lahayn arrinkaasi ayaa waxyaabaha waaweyne ilaahay ina siiyey ammaantana uu ku mudan yahay ayaa ka mid ah kitaabku waa kitaabka qur-aanka cabdigana waxaa laga wadaa rasuulkeena nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh waana sharaf bay u tahay in addoon la yidhaahdo maxaa yeelay addoonnimadu waa sharaf innaga sharaf baynoo tahay sidaan addoonnimada ugu kala fiicannahay baana u kala sharaf badannahay khalqi ama shaydaan ciddii addoon u ana waa dullinimo laakiin ilaahay oo addoon loo noqdaayo iyadu waa sharaf iyo cizi wey saas daraaddeed baa nabigeena sal lla lay wasalam meelaha la ammaanayo addoonnimaa lagu ammaana calaa cabdihi waa xilligii waxyiga laga hadlayay waxaan soo marnay subxaana aladii asraa bicabdihi israa habeenkii la dheelmiyey la kaxeeyey addoonnimo ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala marka addoonnimadu waa maqaam sare weeye khalqiga marka la fiiriyo sida loogu kala fiican yahay baana loo kala sharaf badan yahay rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ka fogeeyo o ka durkiyey wax la yidhahdo qallooca alfaadiisuna ma qalla tashriicaadkiisa iyo nidaamka uu dejinayana ma qalloocsana wax iska hor imaanaya ma jiro bal waa toosan yahay waxaan soo marnay rabbi subxaana wa tacala inuu yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam dariiqada ugu toosnaan badan buu addoommada ku hanuuninaya hadday caqaa'idda tahay hadday cibaadaadka tahay hadday nidaamka macnaha wax weeye maarata nolosha tahay haddii ay tahay yacni axkaamta iyo xuduudda hadday tahay hadday dhaqaalaha nidaamkiisa yahay dowladda nidaamkeeda hadday tahay nidaam toosan oon qallooc lahayn ayuu rabbi subxana wa tacala ku saleeyey qayimantu waa sii xoojinoo taa unbaa lasii xoojinaya maxaa alla subxaana wa tacala usoo dejiyey laba arrimood baa loo soo dejiyey waa midda koobaade in loo digo oo dhibaato adag oo ilaahay agtiisa taalla addoommada looga sii digo oo la yidhaahdo war dhibkaasaa idinka horreeyo soo socda isjira taasi waa mid ta labaad qolada loo digayo iyo qolada loo bishaaraynayo qolana waa loo bishaaraynaya qolo bishaaraynaya waa dadka camalka saalixa leeyi qoladaana in loogu bishaareeyo inay ilaahay agtiisa ajir wanaagsan oo janno kaasay ku nagaanayaan oo weligooda inay ka baxaynin alxamdu mahad lilah mahadqigeed iyo dhammaanteed lilaahi baa mudan oo iska alladii allahaasoo anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa nebi maxamed alkitaaba kitaabkii qur-aankaa kusoo dejiyey uu kusoo dejiyey lam yajcal uusan yeelin kitaabka ciwajan wax qallooc ah wax oo uu wada toosan yahay kulli ay raagsanta qayiman xaalo uu kitaabkaasi oo haddii la yidhi ma qalloocsana inuu toosan yahay waaba la qayiman maxaa loo dabdhigay waa lasii adkaynaya bas qayiman ama jacalahu wuxuu alla ka yeelay qayiman mid toosan buu ka dhigay muxuu saa u yeelay oo usoo dejiyey liyundira inuu diga daraaddeed ba'soomada inuu uga digo ba'san baas shadiidan oo adag oo min ladunhu alla agtii ka ahaaday waa ciqaabta alla subxaana wa tacaala iyo cadaabka agtiisa yaalla taa inuu addoommada uga digo wayubashira iyo inuu bishaareeyo daraaddeed almu'miniina mu'miniinta inuu ugu bishaareeyo aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynaya alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeya anna lahum inay leeyihiin ajran ajri inay leeyihiin xasanan oo wanaagsan ay leeyihiin waa abaalgudka iyo jannada ilahay digo subxana wa tacala maxaa laysku daba qabtay iimaan iyo camal saalixa labadaasi waa islaazimaan bal camalka saalixa ah waa ruknun min arkaani liimaan cinda ahli sunna waljamaca ma kala maarmaan iimaan uu sheegad ah afkana laga sheeganayo iimaan ba oon camal la soconin saas way macana maakitiina xaala ay yihiin kuwo ku negi fiihi ajirkaa wanaagsan dhexdiisa abadan weligood xaala ay yihiin kuwo ku negi oo weligood aan ka baxaynin kana guuri maayaan kana wareegi maayaan lagana saari maayo kana dhiman maayaan way ku jirayaan wayundira iyo inuu digo daraaddeed kitaabka cilooyinkii loo soo dejiyey baa lasii wadaa wayundira iyo inuu digo daraaddeed baa loo soo dejiyey aladiina kuwa inuu u digo qaaluu yidhi ittakhada allahu alla wuxuu samaystay waladan ilmuu samaystay kuwa inuu u digo maa lahum uma ahaanin bihi
samaysigaas bihi isaga oo samaysiga ilma samaysiga iyaga umuusan ahaanin min cilmin wax aqoon ay cilmi uma ay laha walaa liaabaa'ihim aabayaashoodna wax cilmiya uma sugnaanin arrintaa wax cilmiya uma hayaan kaburatu waxaa weynaatay hadalkaasaa weynaaday ay ku hadleen kelimatan weedh xaggeed eray lagu hadlo xaggii ayuu u weynaaday takhruju kelimadaas soo baxaysa min afwaahihim afafyaalkooda ka soo baxaysa in yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been mooye warkoodu waa un been macnaheedu waxa weeye qur-aanku sidiisaba waxaa ka mida qaab socodkiisa waxaa ka mida ama mabaadidiisa asaasiga waxaa ka mida dadka haddii loo qeexo tawxiidka iyo yani akhlaaqiyaadka iyo cibaadaadka iyo waxa ilaahay ka raba iyo in haddana dhanka kale mabaadi'da xunxunka alla weeraro oo mabaadi'da xunxunka la buriyo oo la jajabiyo oo dadkeeda la dhaleeceeyo waxay ka mid tahay qaabka uu qur-aanku wax u sharxayo waxaa ka mida afkaarta aada u liidata ee dadka qaarkii ay rumaysnaayeen in allah subxaana wa tacaala uu caruur leeyahy yahuud baa rumaysnayd oo waxay yidhahdeen yani cusayr bnu llah cusayr waa wiilka ilaahay nasaaradaa rumaysanaya kristiyaanka waxay yidhahdeen ciisa bnullah almasiixu bnullah bay dhaheen ciisa waa wiilka ilahay bay dhaheen mushrikiintii carabta ayaa qaarkood rumaysnaayoo waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay intaasoo kooxood baa marka laisku radinaya kuwaana in loo digoo la yidhaahdo war waxaad haysataan eed sheegaysaan waxba kama jiro ilaahayna waa ka hufanya nimayo isjira oo cadaab ilaahay ha gelina oo ilaahay ciqaabtiisa macnaa wax weeyaan yaysan idinku imaanin kuwaana in loo digo waxaa laga sii hadlay markay waxaad rumaysan yihiin ma wax aqoon iyo cilmiya u hayaan maya ayaguna wax cilmiya uma hayaan aabbayaashoodii ay ka soo gaadheen ay ka dhaxleen iyo awowyadoodna cilmi umaynan haynin arrinta iyaga inuu ilaahay ilmo leeyahay miyaa cilmi loo heli karaa abad caqlina loo heli maayo cilmi ilaahay soo dejiya ku tusi maayo maxaa yeelay macnaha waxay ka dhigan tahay ilaahay baa dhiman oo baahan ilmaha samaysigiisii la waa dhimanaashe taas cilmina umayna haynin awowyadoodna cilmi umayna haynin oo iska qaateen waxun macnaha caado iyo hiddo ay soo gaadhin ba ahayd laakiin cilmi aan ku salaysnayn rabbi subxaana wa tacaala marka arrintaa waa fogeeyey oo wuxuu yidhi weedhaasi afkooda ka soo baxaysaayo waa weynaatay waa arrin culusoo weyn takaadu samaawaatu yatafatarna yani waxa weye samaawaadku inay dildilaacaan dhulkuna macnaha wax weeyaan iyo dhulkuba khatar bay u gelayaan hadalka ay ku hadlayaan culaysku leeyahay daraaddeed makhluuqaadka waa weyn baa macnaha khajal ay ka khajalayaan waxa hadalka noocaasa ilaahay baa ilmo leh ayay macnaha rabbitullaahi subxana wa tacala inay sigayaan inay dildilaacaan macnaha marka waa hadal culus rabbi subxaana wa tacala waa la aflaagaadeeyo wey macnaha allah wuxuu leeyahay hadalkaasi waa un hadalay been iska yidhahdeen waa been oo iska dhehno meel ma haysto meel ma cuskana wayundira iyo inuu u diga daraaddeed aladiina kuwa qaaluu yidhi ittakhada allah alla wuxuu samaystay waladan ilmo ayuu samaystay kuwa yidhi inuu u diga daraaddeed baa loo soo dejiyey maa lahum uma sugnaanin kuwa bihi samaysigaa ilmaha la samaysto bihi kaas maa lahum iyaga uma sugnaanin bihi isaga oo kee ah ilmo samaysiga min cilmin wax cilmiya uguma sugnaanin walaa liaabaa'ihim aabbayaashoodna cilmi uguma sugnaanin oo iyaguna wax cilmiya u hayeen iyo xujatoona ma jira kaburatu way weynaatay weedhaa ay ku hadleen kelimatan weer ahaan bay u weynaatay waa tamyiis kelimatan weer ahaan xaggeed iyo erey xaggii ayay u weynaatay kelimadaasoo takhruju ka soo baxaysa min afwaahihim afafyaalkooda ka soo baxaysa in yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been mooye waa hadal uun layska yidhiyo been la tibaaxay wey macnaha falacallaka waxaad mudan tahay nebi allow baaqicun inaad tahay mid halaagaya nafsaka naftaada mid halaagaya inaad tahay baad mudan tahay calaa aahaarihim raadadkooda dushooda inaad naftaada ku halaagayso in lam yu'minuu haddaynan rumaynin bihaada alxadiidi xadiidkan warkan haddaynan rumaynin asafan tiiraanyo darteed inaad halaagayso naftaadoo tiiraanyo daraaddeed u halaagayso ayaad mudan tahay haddii aynan rumaynin aynan raacin macna innaa anagu jacalnaa waan yeelnay maa cala alardi waxa dhulka dushiisa ah ayaan yeelnay ziinatan qurux baan ka yeelnay lahaa dhulkii baanu qurux uga yeelnay maxaa looga yeelay linabluwahum inaan imtixaano daraaddeed ayuhum koodeeba
axsanuu wanaag badan camalan xagga camalka wa innaa anaguna la jaaciluuna kuwa yeeli baanu nahay maa calayhaa waxa dhulka dushiisa ah waxaanu ka yeelaynaa saciidan caro siman juruzan oo xaaluf ah caro siman oo xaaluf oo waxba korkeeda ku oolin ayaanu ka dhigaynaa bu rabbi yidhi subxana wa tacala falacallaka baaqicun nafsaka macnaheedu waxa weeye rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu aada u jeclaan jiray in ay dadku rumeeyaan oo ay diinta wada qaataan khaasatan odayaashii reer qureysheed ee adeeradii iyo odayaashaasuu nabigu iska jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay diinta qaataan oo rumeeyaan muxuu u yeelayaa wuxuu u yeelayaa naxariis wamaa arsalnaaka wa kaana bilraxiim buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh naxariistaas uu dadka u danqanaya cadaab ilaahay uga naxayo daraaddeed buu nabigu sal lla alay wasalam wuxuu jeclaa dadku inay soo wada islaamaan oo iimaanka wada qaataan markaasaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay waxaad mudan tahay inaad naftaada halaagto ayaga daba socodkooda inaad ku halaagto haddaynan warkan rumaynin xadiisdii qur-aankii kaa diidaan walbahaar iyo tiiraanyo daraaddeed inaad naftaada u halaagto ayaad sigaysaa bu rabbi subxana wa tacala ayaad mudanta saasa la leeyahay ma haysdilin baa la leeyahay marka waxba haysdilin falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraatin oo kale la mid walaa taxzan calayhim ha u murgin baa la leeyahay naftaaduna qoomamo daraaddeed iyayna u tegin yacni waxay ku tusaysaa ruuxa daaciga ah ee mabda'a iimaanka rumaysan ee wadaayay ee xambaarsani inuu khalqiga u danqado oo khalqiga u naxo oo haddana dadaal ku bixiyo intuu heli karaba uu isku kallifo khalqigaa siduu cadaab ilahay uga badbaadin laha subxana wa tacala laakiin waxaa la leeyahay nebi allow yacni waxba haysdhibin naftaadana ha halaagin khatarna haysgelinin daba socodkan aad daba socoto sidaasaa nabiga lagu leeyahay salawatu rabbi wasalaamu calayh sababtu maxay tahy sababta waxaa la leeyahay dhulka dushiisa waxa yaalla qurux baanu dhulka uga dhignay maxaa dhulka dushiisa yaalla waa xoolaha waa caruurta waa macnaha wax weeyaan maarata dumarka waa wax kastoo naftu tacasha waa nabaadka soo baxay waxyaalaha dhulka dushiisa saaran qurux baanu dhulka uga dhignay oo dhulka dushiisa maxaa loo qurxiyey inaanu imtixaano kuwan yani waxa weeye yani bini aadamka ah oo markaa ay kala caddaato keebaa camal wanaagsan oo wixii dhulka dushiisa la dhigay quruxda badnaa naftiisa intuu ka celiyo ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa raacinayo keebaase imtixaankii ku dhacayo diinta ilaahay intuu diido adduunyada iyo quruxdaa ka dooranay labadaasi inaan kala caddaynoy kala baxaan daraaddeed baan dhulka dushiisa u qurxin waxaa laga fahmayaa hadduu imtixaan la maro oo dadka imtixaan la geliyo imtixaankii ma lagu wada baasaya maya soomaa so imtixaankii dad ku baasaya dad ku dhacbamay lama yeelanayo marka waxaa la leeyahay nebi allow annagaa imtixaan ka dhignay imtixaan haddii la geliyana qasab qaarkood inay dhacaan waa laga maarmaano imtixaanka ku dhacay kuwii imtixaanka ku dhacay haddaad isku rafaadiso oo tiiraanyo daraaddeed isu halaagtahay wax suuroobi kara ma ilaahay baa ku talagalay kuwaasi inaysan rumaynin marka nabigaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi laleeyahay ublibri naftaada dhulka waxa la qurxiye dushiisa saaranee nafteenna jiidanaya ee aakhare iyo diinba inoo diiday ma saasuu usii jiri doonaa ma wax sii jiri doono oo daa'imi doona maya wa innaa la jaaciluuna maa calayha saciidan jurusan baa la yidhi subxana wa tacala waxa dhulka dushiisa saaran ee quruxa ee naftiinu jeceshahay waxaanu ka dhigaynaa bu rabbi yidhi subxana wa tacaala dhul siman oo haddana xaaluf ah juruska waxa la yidhahdaa waa dhulka la daaqay oo wixii dushiisa ku yaallo dhan la goostay eber wey macnaheedu waxa waxaan saaran oo dhan waa laga qaadi doona buurahana la qaadi geedahana la qaadi badahana la qaadi khalqigan baahsanee faraha badan baa la qaadi wax alla waxa dushiisa saaran oo dhan eber baa laga dhigi doona xaaluf baan ka dhigaynaa bu rabbi yidhi subxana wa tacala waa markii waqtigii ilahay ugu talagalay la gaarhaya subxana wa tacala saas wey macana falacallaka waxaad mudan tahay baaqicun inaad tahay mid halaagaya nafsaka naftaada mid halaagaya inaad tahay baad mudanta maxaad u halaagaysa asafan dandambaa ku xidhan asafan tiiraanyo daraaddeed falacallaka waxaad mudan tahay baaqicun inaad tahay mid halaagaya nafsaka naftaada mid halaagaya inaad tahay calaa aahaarihim raadadkooda dushooda mid ku halaagaya inaad tahay macnaha ruuxa markaad daba socoto raadkiisii baad haysa sooma macnaha iyagiina waa kaasii cararayaan adiguna waa daba socotaa sidii isagoo raadkoodii ku tagan oo kale laga dhigay calaa aahaarihim raadadkooda dushooda inaad ku halaagayso in lam yu'minuu haddaynan rumaynin bi haada alxadiidi warkan sheekadan oo qur-aanka haddaynan rumayn maxaad u halaagaysaa asafan tiiraanyo daraaddeed inaad naftaada u halaagayso
ayaad mudan tahay macna marka waxba isalaagin hala isdhiibina waxa waa qadar ilaahi subhanahu wa ta'ala imtixaan ilaahi adoomada galiyo ma lagu kala baxay waa imtixaan inna allagu ja'alna waxa yeelay ma 'ala al-ardi waxa dhulka dushiisa ayaanu ziinatan qurux ka dheelay laha dhulkii baan qurux uga yeelay maxaa loogu yeelay linabluwahum inaan imtixaano daraadeed adoomadii inaan imtixaan ayyuhum koodeeba ahsanu wanaag badan amalan xagga amalka saasa loo kala bixi marka iimaan taaco khayr alla jacaylkiisa yeelidiisa iyo kuwa shaytaanka iyo sharka raaca wa inna anagu la jaa'iluna kuwa yeelayaanuna ma shayga calayha dhulka dushiisa waxa dhulka dushiisa waxaanu yeelaynaa sa'iidan arasiman ama dhul siman baan ka yeelaynaa juruzan oo xaaluf ah dhul siman oo xaaluf oo waxba korkiisa ku hoolin baan ka dhigaynaa oo waa ifkan iyo adduunka marka la gabagabeynayo waxa dhulkeeda dusheeda saaran oo dhan waa la qaaday bal iyada lafteeda baa la burburinayaa sida ayada kale ay tilmaamayaan am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba qisadii u warrisay baa laga bilaabay am hasibta miyad malaysay anna ashab al-kahfi godka asxaabtiis war-raqim iyo kala qoray asxaabtiisi kaanuu inay ahaayeen min ajaban shay la yaab leh min aayatina aayadaha naga xaalu ka mid yahay id waqti miyaad malays ama id waqti xus awaa ay dulmeen oo hoydeen alfityatu dhalinyaradii ila alkahfi godka markay u hoydeen oo u dulmeen faqaaluu marka ay yidhaahdeen rabbanaa rabbiganaw aatinaa nasii min ladunka agtaada waxaad naga siisaa raxmatan naxariis naga sii wahayi diyaari lanaa annaga min amrinaa arrinkanaga xaggiisa rashadan hagaagsani iyo hanuun nooga diyaari fadarabnaa markaasaanu dhufannay calaa aadaanihim dhagahooda korkooda waxaan ku dhufannay xijaaban way macnaa xijaaban min annawm halkaasay ku jirta macna hurdaanu dhagahooda ku dhufannay filkahfi godka dhexdiisa siniina sannado cadadan oo tira ah sannado tira ah ayaanu dhagahooda korkooda hurdo yeelnay bu rabbi subxana wa tacala oo aanu xijaab hurdaa ku dhufannay bu rabbi subxana wa tacala uma kadibna bacatnaahum waan soo bixinno waan soo baraarujinay linaclamo inaan ogaano daraaddeed ayu lxisbayni labadii kooxood mideeba axsaa koobtay limaa shayga labithuu ay nagaadeen ama limaa labithuu lilubfihim nagaadigooda amadan muddo ahaan muddo xaggeed nagaadigoodu intuu ahaa labada xisbi midii koobtay inaan ogaano daraaddeed bu rabbi subxana wa tacala qisadan waa qiso suuradan keliyata lagu sheegay wey qur-aanka meel kale kusoo aroortay ma jirto suurat lkahfi buu rabbi subxaana wa tacaala ku sheegay waana qisada laga soo qaatay wey suuradda magaceeda laga soo qaatay qisadu waxay ahayd dhacday nabi maxamed sal ly slam intaan la soo saarin soo saaridiisii ka hor bay dhacday laakiin bitaxdiid taariikhday dhacday lama garanayo muhiimad weyna kuma xidhna tafaasiisha qisasku markay dhacaan qur-aanku suu usoo gudbinayo meelaha muhimka ahee duruusta laga faa'iidaysanayo unbuu ka abaaraa laakiin tafaasiil aan macno weyn ku xidhnayn lama aadayo qisadaasaa marka laga warramayaayo waxay leeyihiin riwaayaadka siyarku qaarkood waxay leeyihiin nebiga sal lla alay wasalam waxaa weydiiyey odayaasha reer quraysheed oo waxay ku yidhaahdeen yani yahuud baa usoo sheegtay waxay yidhahdeen hadduu nebi yahay 3 su-aalood soo weydiiyey su-aalo dhowra waxaa ka mid ahay niman dhallinyaraha oo taariikhda soo maray wakti baa jiray oo qiso cajiiba lahaa bal weydiiye hadduu wax ka garanayo ta kale ruuxda weydiiye su-aalo noocaasoo kale ta kale nin waxaa jiray isagana dhulka aada u maray oo qisadii isagana caan ahay oo dhul mareen ahaa bal ninkaana warsada inuu wax ka sheego marka su-aalihii ay weydiiyeen baa nabiga sal lla lay waslam loo yimid oo malakul jibriil u yimid markaasaa loo keenay tafaasiishii qisaska la siiyey marka rasuulka sal lla lay waslam qisadan marka waxa way saasay ahayd bay leeyihiin qisada marka hore si urursan oo kooban buu ilahay u sheegay subxana wa tacala tafaasiisheedana dib baa laga faahfaahiyey intaa hadda aan akrinay waa iyadoo urursan oo kooban waa warkii oo kooban
warkii oo baahsanna wuxuu ka bilaabanayaa naxnu naqussu calayka naba'ahum halkaasuu ka bilaabanaya qisadoodiiyo marka faahfaahsan baa dib laga keeni laakiin marka hore iyadoo urursan buu rabbi subxana wa tacala na siinaya ma waxaad mooday baa laleeyahay nabiga sal lla alay wasalam miyaad mooday godka iyo kan la qoray asxaabtiisii inay aayadahanaga kuwa ugu caja badan yihiin miyaad moodaysa kahfiga waa godkii dhallinyaradu galeen raqiimkana waxaa fiican oo raajixa oo sida fiicani ay tahay in la yidhaahdo wuxuu ahaa loox ay wateen ama dhagaxa ka samaysnaade ama alwaax ba ahaadee loox ay wateenoo wax ugu qornaa ma magacyahoodan lagu qoray ma wax kale ku qornaayeen raqiimka kaasaa la yidhaha oo waxaa laga keenay yani waa raqiim bimacnaa marquum kii macnaha wax lagu qoray kii la qoray kii macnaha waxa way qoraalka lahaa marka dhallinyarada magaca caanka ee ilaahay u bixiya wuxuu noqday oo caan ay ku yihiin dhallinyaradii godka iyo kan qoran saas macnaha godka iyo kan qoran dhallinyaradiisii asxaabtiisii ma waxay kula tahay inay aayadahanaga ugu caji badan yihiin astaamahanaga kuwa ugu caji badan miyaad moodaysa wax ka caji badan baa jira sooma dhallinyaro intay god gashay muddo ku jirtay 300 iyo siyaado sano ku jirtay haddana soo kaakacay iyo samaawaadkan abuuristooda iyo dhulka abuuristiisa iyo habeenkan iyo maalintan isdaba maraya iyo qoraxdan iyo keeba caji badan isma dhow sooma tana ka caji badan marka hamoodin aayadahanaga inay ugu caji badan yihiin saas la leeyahay macna am xasibta ma waxaad mooday miyaad malaysay anna asxaab alkahfi godka asxaabtiisii warraqiimi iyo kan la qoray looxii la qoray asxaabtiisii kaanuu inay ahaayeen min aayaatina aayadahanaga xaalay ka mid yihiin cajaban kun la yaab ama kaanuu inay ahaadeen cajaban shay la yaab leh min aayaatina aayadahanaga xaalu ka mid yahay cajabkaas yani aayadahanaga kuwa ugu caja badan miyaad moodaysaa ma caja badna waa laga sii caja badan yahay aayada ka caja badan baa jira id waqti xus baa lili marka aawaa ay dulmeen ama awaad id waqti xus awaa ay hoydeen hoyashada ama dulmeen alfityatu dhallinyaradii markay dulmeen ila alkahfi godka xaggiisa markay u dulmeen kahfiga waa godka buurta ku yaalla way macna ayib godka markay galeen oo u dulmeenna maxay dhaheen faqaaluu markaasay yidhaahdeen rabbanaa rabbiganaw aatinaa nasii min ladunka agtaada xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis nasi rabbiyow godkaasaanu gallay adiga dartaadaana godkaa u gallay ehelkanagii iyo dhulkaan ku dhalanay iyo dadkaan wada dhalanayna adiga daraaddaa baanu uga tagno maanta godkaasaan ku dhex jirnaa adiga naxariistaada umaan meesha ku sugaynaa way macana saas macana ilan xaalad markaad cidhiiriya gasho rabbigaabaa loo carraa subxana wa tacala aatinaa nasii min ladunka agtaada waxaad naga siisaa raxmatan naxariis wahayi allow diyaari lanaa annaga noo diyaari min amrinaa arrinkanaga xaggiisa waxaad nooga diyaarisaa rashadan hagaagsani waxay ka wadaan arrinkan aan doonanay een qaadanay een ku dhex jirno ilaahu hanuun iyo hagaagid ilaahu naga sii oo nooga diyaari oo macnaha waxa weeyaan ilaahu caaqibo wanaagsan iyo cidhib wanaagsan iyo khayr naga sii way macnaha sidaasay ka wadaan ayib fadarabnaa markaasaan dhufannay darabnaa waan dhufannay calaa aadaanihim dhagahooda korkoodaan ku dhufannay maxaa lagu dhuftay dhagaha korkooda waxaa lagu dhuftay xijaabkii hurdada ila ruuxu markuu macnaha waxa weye hurdo camiiqa uu ku jiraayo waxba ma maqlo sooma dhagihiisa xijaab baa saaran haddaad shabaqda iyo shanqadhaga gaarkaaga aada maqlayso weli maada seexanin laakiin markaad hurdada dhabca gasho waxba maqli maysa marka fadarabnaa waan dhufannay calaa aadaanihim dhagahooda korkooda waxaan ku dhufannay xijaaban min annawm way macna astur codka bannaanka ah ka astura oo hurdo ah baan ku dhufannay filkahfi godka dhexdiisa siniina sannado ayaanu ku dhufannay cadadan oo tira u saaxiib sannado tira ah ayay godkaa ku dhex jireenoo yacni hurdo la geliyey dhagahoodiina codka ay maqlayaan laga xidhay sannadahaas wayna maan doonta 309 sano qur-aankaa dib ka qeexi doona cadadan baase hadda lagaga baxay macna naxnu naqusu calayka dhallinyarada qisadoodii waata marka ayadoo faahfaahsan intaasi waxay ahayd iyadoo urursanoo kooban uma kadib bacatnaa waan soo bixinay muddadaa dheer markay hurdeen kadib
bacatna waanu bixinay oo waan baraarujinay hurdadii baan ka soo bixinay maxaa loo soo bixiyey oo hurdada looga soo kiciyey cilladu maxay tahay ku jirtahay linaclama inaan ogaano daraaddeed ayul xisbayni labada xisbi keebaa axsaa koobay limaa labithuu nagaadigooda ay lilubthihim nagaadigii meesha ay ku nagaayeen labada xisbi keebaa koobay amadan xagga muddada muddada ay ku jireen nagaadigooda muddadiisa labada xisbi ka koobay oo ayna ka khaldamin oo keenay inaan ogaano daraaddeed labada xisbiyey waan u tegi doonaayo nimanka dhallinyarada ah markay godkii ka soo baxeen oo xilli dambe adduunku isbedelay oo 200 sano kadib ah ayaa lagu murmay waa lagu murmay waxay ku murmeen intee bay nagaayeen oo meesha ku jireen ayaga laftooda waxay ku doodi doonaan oo u tegi doonaan war meesha ma maalin baynu ku jirnay hurudnay aw bacdaynu mise maalin qaarkeed hurdaday ka soo kaceenba waxaa dawmo ka dambaysayba muran ay murmeen war intaasaan ku jirnay may intaasaan ku jirnay marka labadan qole ee xisbiye arrinta ku doodaya midkooda waqtigii ay meesha ku jireen koobay oo saxay ka inaan ogaano daraaddeed baan usoo saarnay rabbi subhanahu wa ta'ala thumma kadibna bacatnaahu waan soo bixinay hurdadii baan ka soo kicinay linaclama inaan ogaano daraaddeed alla horuu ogaa laakiin waxaa laga wadaa in la muujiyo oo khalqiga ogaadaan linaclama inaan ogaano daraaddeed ayul xisbayni labada xisbiye masalada arrinta ku murmaya koodii axsaa koobay ayul xisbayni labada xisbi keeba axsaa koobay limaa labithuu nagaanshahooda amadan xagga muddada nagaanshahooda xagga muddada kooxda koobtay inaan ogaano daraaddeed ayaa lagu soo saarnay rabbi subhanahu wa ta'ala naxnu anaga ayaa naqussu qisoonayna calayka dushaadaan kuu qisoonaynaa nebi maxamedo naba'ahum warkoodii dhallinyarada warkoodii bilxaqi isagoo xaq ku dheehan sidii ay wax ahaayeen baan kugu sheegin innahum iyagu marka dhallinyaradaasi innahum iyagu fityatun niman dhallinyaraa wey oo aamanuu rumeeyey birabbihim rabbigooda rumeeyey oo wasidnaahum aan u siyaadinay hudan hanuun iyo iimaan aan u siyaadinay warabatnaa aanu xidhnay oo warabatnaa aan xidhnay calaa quluubihim qalbiyadooda korkoodana aan xidhnay oon adkaynay wey macna id waqti baanu quluubtooda xidhnay qaamuu ay kaceen faqaaluu marka ay yidhaahdeen rabbunaa rabbiganna rabbu samaawaati samooyinka rabbigooda wey waalardi iyo dhulalka lan nadcuwa ma baryayno ma caabudayno min duunihi isaga ka sakow ilaahan mid la caabudo laqad qulnaa xaqiiqee waxaanu nidhi idan markaa haddaanu mid kale caabudno idan markaa waxaanu nidhi oo ku hadalnay shatatan hadal meelka dhaca hadal fog oo xaqa ka durugsanoo meelka dhaca markaa ku hadalnay wey macna haaulaa'i kuwani qawmunaa tolkanagii wey waa kuwa tolkana ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi alla ka sakow aalihatan kuwa la caabuday samaysteen lawlaa ya'tuuna may la yimaadaan calayhim kuwa ilaahyadaa korkooda bisuldaanin xujo may ula yimaadaan bayinin oo cad faman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid iftaraa been abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been macnaheedu waxa weeye qisada marka la soo ururiyaaye nimankaa waxay ahaayeen niman dhallinyaro asxaabulkahfi waxay ahaayeen niman dhallinyaro ah bulsho waxay ku dhex noolaayeen gaalo ah dawladduna ay gaalo tahay mujtamacuna uu gaaleeyahay iyadoo xaalkoodu sidaas yahay baa ilaahay qalbigooda iimaan geliyey aamanuu birabbihim rabbigood bay rumeeyeen rabbina markay iyagu rumeeyeen buu iimaan u siyaadiyey hanuun buu ilahay u siyaadiyey subxana wa tacala marka waxaa laga faa'idaysanayaa iimaanku inuu siyaado hanuunkuna siyaado liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaanku waa siyaadaa waana madhabka ahlusunna waljamaaca waana aayadaha loo daliishaday ka mid iimaankoodii ay qaateen buu ilaahay ugu daray oo uu u siyaadiyey subxaana wa tacaala quluubtoodiina waan sugnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala warabatnaa calaa quluubihim macnaheedu waxa weeye markay rumeeyeen ilaahay tawxiidka iyo diintana qaateen bulshadii ay ku dhex noolaayeenna ay tahay bulsho gaalo ah oo ilaahay cid aan ahayn caabudaysa waxay ku qasbanaadeen marka intay bulshada ka dhex tagaan oy ka dhex baxaan inay godkaa iska galaan saasay qisadooda ku timi sababta keentay baa la tilmaamo muxuu ahaa
bulshadii oo gaala ah bay iyagii iimaan ku khilaafeen iimaankii bay qaateen adiga oo iimaan lahoo rabbi iimaanku siiyey hanuunna kuu kordhiyey bulsho gaala miyaad dhex joogi karta ya waa adag saas daraaddeed waxaa kuu dhaanto wey bedelkii bulsho gaalo ah iyo maamul gaalo iyo kufri aad hoos joogi lahayd god iska gal saas wey macana hijro maxaa yeelay iimaankaaga iyo hanuunka ilaahay ku siiyey baa diidaya isma qabanayso nimankaa dhallinyarada ilaahay subxana wa tacaala duruusta uu inaga siinaya waxaa ka mid ah ruuxa mu'minka iimaanka leh haddii uu bulshada uu ku dhex nool yahay ay gaalo tahay waxna uusan ka qaban karin inuu ka cararo oo uu ka tago hayla meel lacnada ilahay kusoo degayso iimaankaaga inaad muujisataad u baahanta mabda aad rumaysnayd inaad ku camalfashaad u baahanta diintaadu wadatay inaad ku dhaqantaad u baahanta lagumana ogola maxaad samaynaysaa god bay galeen marka xaalkoodu saasu ah ayib markay godka galeen xaalku xaal sahlan maaha maxaa yeelay iyaga oo barwaaqo ku jira oo bulsho laga yaqaano ay ka dhasheen dhex jooga oo dhulka dushiisa jooga oo meelay magac ku leeyihiin jooga halkaa intaad ka tagtaan god iska gala oo talo maxaad ku dambayn doontaan wax sahlanba bulshada aad dhex joogto mabda ay wadato khilaaf oo garab mar waa mas'ale adkaysi u baahan god intaad gasho meesha ilaahay naxariistiisa ku sug waa mas'ale adkaysi u baahan adiga maanta haddii lagu yidhahdo halkaa intaad masaajidkaa dhex gasho risqu uu ku imaana halkaas sii fadhi ku kalsoonaan maysa adoo kacay oo orday baa lagu arkay cadad bini aadamka khilaafsanta curfiga bini aadamku bartay bay khilaafsanta marka adkaysi bay u baahan tahay saas daraaddeed baa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala warabatnaa calaa quluubihim quluubtoodii baan xidhnay oon adkaynay wey macana khiyaarkay qaateen ayaanu qalbigoodii ku adkaynay wey macana niman ka noqday ama shaki galay ama tazaczucay mayna noqonin wey macana maxaa yeele ilahay baa la jira subxana wa tacaala warabatnaa calaa quluubihim arrinkaasi wuxuu dhacay markay kaceen fadhiga ka kaceen mehe macnaha wax way ay u dhaqaaqeen markay kaceen oo yidhaahdeen rabbigana waa rabbiga samaawaadka iyo dhulalka kaasaanu annaga rumaysannahay ilaah ka sokeeyo oo aanu caabudaynana ma jiro haddaanu saa yeelnana oo alle mid ka sokeeyo aanu caabudnaana hadal fog oo gardaraac ayaanu ku hadalla bay dheh waa kuwa tolkana waxyaalo fara badan bay alle ka sokow caabudayaan oo asnaam iyo geelay caabudayaan may xujo cad u keenaan haddii wax jiro ay tahay may xujo cad keenaan waa uun been abuurad cid ilaahay ku been abuuratana mid ka gardarro badan ma jiro warkooda saas u fiirso duruustaad ka qaadanaya waxa weeyaan meesha kufriga iyo mujtamaca kufriga haysta iyo duwalul kufri inaad ka hijrooto maaha inaad u hijrooto xataa khiyaarku hadduu kallifo inaad baadiyo iyo dhul macnaha waxa weeye nolol adag inaad gasho noloshaa adag baa kuu dhaanta waddan gala inaad aado ama aad ku noolaato waa haddii iimaankaagu uu dhab yahay hidaayadana ilaahay uu ku siiyey subxana wa tacaala aamanuu birabbihim wazidnaahum huda taasa shardi ah ama haddii hidaayadu kugu yartaa ama iimaankaagu dhiman yahay waa sida maanta ina haysatee hadda gaalada inaad la daristaaba faan aba inaad waddamadooda aadaaba macnaha waxa weeya waxayba tahayba looba arkaaba karaamo loo arka يعني wax kastaaba lagu bixinay waa loo ridoonayaa diinta dan iyo iimaankii baa loo gadanayaa limaada lianna iimaankii iyo hidaayadii baa jirin wa illa hadu iimaan jiro nolosha adag ee nabadgeliyo darrada ee cunto yarida ee gaajada baad ka doorbid lahayd gaala inaad ku hoslaanatay kufrigood iyo mujtamacaadkoodii dhulkooda inaad ku noolaato sidaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala suurada la nasiinayo iyo darsigaynu ka bayan mid ayada macna takaleeto waxa weeye ruuxa muslimka waxa la doonayaa ee mu'minka sidiisaba inay xujadu qanciso maaha inaad macnaha waxa weeye bulshada sidana way iska raacdo waan soo arki jirnay ma dadka la khilaafi karaa wadar iyo waaxid baa waalan war dadkaaga ka mid noqo iska daa maaha هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين حجعك هنا إلهي سبحانه وتعالى إن ديمقراطيا لقاته أو كفر بالشوين كاللغم عمله أو دين إلهي قبرك لقاته حجعك هنا شركيات يا خرافيات يا قبور إلا عابده حجعك هنا وحوان سؤال كتيرني وسؤال سنتيرنا معه وأدوه إليه سوامها وابسم وبالله توفيق معايا هنا حيور ساسا لدوني وإلا هداكم بمريضان رعب يسكن لغطوا ضدك ويسكن بجوكتا أوي عقلقي أوي علمي وإلهي سبحانه وتعالى أمرينا فرعنا معنا ساسا نحن أنك أيام نقص قصان من النبي عليك دشادا نبأهم وركونا بالحق إسوا حق لها
حاله حق دهين يعني معناها وحي خلط يهودية نصارية كل شيء كيسن جيران وزيادة وحبا كجيرين ما شاء الله قصاري حق سيدي حقيقتي وحود عين قالوا كوسين ناوي معنا إنهم يجوا فتية وانيوان دلنيرا ما حد دلنيرا لو يجي دلنيرو أيجا مرول بدين تأي مبادئ ذا قاضي الشديد وجدك دك بدل أضياش بس ساس درجة بالرسوش ضدك الرعاي أنت بدل ضدك وحي أهين دلنيرا ذا يضدك دلنيدا فتية هذو أضيء على هذا وقيمين لها ما يقبل شرو وحبا لقى بدلي كرايو بالبشرة هالسكيد حشرو فرج لهم بعض إيمان كرو وعقلس باكوجين ساس براد يدور فتية تيولي سبحانه وتعالى إيمان بل يراو سيدة يدبنا مسارك أمضاها يجيدك أمضوه كس عدان بل يرى بدش إله سبحانه وتعالى إيمان أسيء خير سيبا انتي خطك يطيارك وحكس عدان انتي كوري مادان بعد منكو أسعدوا ويبنك ليوتشيريا كفر هدو كسعدين إيمان بيوتشيريا معصية هدو كسعدين ضاعي بيوتشيريا حمان هدو كسعدين ولاي بيوتشيريا ماشي كسعدين ويبنك كليو بدلا لكن ومركي إيمان يهدي إله إلا الله سبحانه وتعالى أريدنا إذا عطي والربط الأول الرب سبحانه إنهم يبقوا فتيتون وآمنوا رمي بربهم رب قدرهم ووزدناهم أن أزيادني هدى هنونا أن أزيادني إلهي بهنون كهيسا سبحانه وتعالى والربطنا والحدني أما والأتكينا على قلوبهم قلبيا وذكركضا أتكيني وحي أي دورتين وحوغان نفتكو أرق أي معناه وحويان أيان كو أتكينا يقول الرب سبحانه وتعالى قلوبتو كو أتكينا كو السبنا بمعنى ساس كبت تدك كد اسكجل عفسي ملقات دائما تلو من القديلي تونا وحنا إلهي ما قلبي ورسوله سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ وقتي أيان قلوبتو ذسغني قاموا أي استاجين أو فقالوا أي دهن قاموا أي كأن أو فقالوا أي دهن ربنا رب جنة رب السماوات سموينك رب جودوا والأرض يرولك لن ندعو مع عبود إنه مبري من دونه ألك سكوا إلها من العابد وحدوني مع النقطة لقد قلنا حقيقة وننري إذا مركع ومركع الله عيد على هنا عابدناه إذا مركع وحننري شطبا هذا الفك أو حق كف ساس معنا ملك دعا هؤلاء كوني قومنا تلك نوي اتخذوا وحي سميستين من دونه ألك سكوا وحي سميستين آلهة كل عابدي سميستين لولا يأتون ميلي مادان عليهم كوا أي عابديا كركودا كوا عبادة كركودا ما يولي مادان بسلطان الحجة ما يولي مادان بيين أو عد حجة عدو وحنا يكون عابديا كتصيسا ما يكينا وكل راعي الهينه حجة لأنت ووحر وقتقني شيء وحدوش الحجة هنكتك ولو أوغا إيا طولك عصوها استنية معناها انت هتكسو فرعنتك وحما كامل قل هذه هذا هذا اللي قل راعي حجة عد ما يكينان فمن أظلم ياك قرد ربرا ممن عد افترى بين أبورتي على الله ألا دوشيسا كذبا بينكو أبورت وهذا الحجة وهي سنين هذا كدل سعوته وبين أبورت إله بيلي أصنام هلا عابدوا الله يلي قبور تعابدوا أولياء العسكرة ويعني لك أيها أدونك أولياء كتلس صالحين معناها بركيستا إلهي بايلي صوبين أبور الله يا كبن بدن أو كجر دربنا منك إلهي وحن كسب سبحانه وتعالى وتيرني وقوه معنا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ وقت اعتزلتموهم أتكبراتين اعتزلتموهم يا الله لا يعني وقت يرضى وإذ وقت اعتزلتموه أطيراتين هم بلشديني أكديراتين إياه وما يعبدون إياه وحي عابديان إلا الله الله موي إياه وحي عابديان بواتكتكتين الله موي فأوه إذا مك ظلما أوه إذا إلى الكهف قدك حقيز أوه إذا ينشر حافظيه أما ينشر وفدين لكم إذنك ربكم ربكين هيدين فديه من رحمتي نحريستي سقارك هيدين فديه ويهيئ هاد دياريه لكم إذنك هيدين دياريه من أمركم أرنكين حقيسا مرفقا شيء لغو انتفاع سنود أو لغو دمرستو شيء لغو انتفاع سنونا أرنكين هيدينك دياريه معنى هذا وحوي آيدا لن يردي وكوي بلشدك نحبحي قد كان كدور بدي هنا إسكاقلان ربي سبحانه وتعالى وحوليه مركات كدح بحدين إلهي ددتين أدوغت تكتين ربي سبحانه وتعالى سيد النبي قلنا كسوة صلى الله عليه وسلم شيء روحي شيء كتغا إلهي درتين أغتغا
wax ka fiican buu ilaahay ugu bedelay subxaanahu wa tacaala. way ka dhexbaxeen oo jirkoodii bay kala dhexbaxeen, mabaadi'doodiina way ka tageen oo way ka fogaadeen. markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi godkan gala oo u dunma oo u hida. rabbi wuxuu idiin fidinayaa naxariistiis, arrinkiinana intifaac buu rabbi idinka diyaarinaya. arrinku kee wey? waa arrintan ay ku dhex sugan yihin. xaalkiinan idin haystana waxaad ku intifaacdaan ood ku dhimrisataan buu ilaahi subxaana wa tacaala idinka diyaarinaya. saas way macna. rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi yuushiku an yakuuna khayru maa lilmuslim hanaman yatbacu biha shacafa aljibaali wa mawaaqica alqatri yafiru bidiinihi min alfitan buu nabi yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh. yacni waxaa dhow buu nabi yuri sal lay slm in uu noqdo xoolaha muslimka ruuxa muslimka xoolihiisa kuwa ugu khayr badaniy nin muslim ah oo xoolihiisa arigiisa ku raacanaya buuraha korkooda iyo meeluhu roobku ka da-o. maxaa magaalooyinka iyo bulshadiiya ka dhex saaray? yafiru bidiinihi min alfitan buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh. diintiisuu la cararayo fitnooyinka kala cararay. fitnooyinka magaalooyinka yaalla iyo tuulooyinka iyo degmooyinka buu diintiisii ka badbaadsanayaayo markaasuu duurkaa iska galay. xayntiisa adhiguu raacanayaayo meelaha roobku ka da u geysanayaayo iyaduu maalayaayo ilahayna meeshaasi ku caabuday. xoolo kuwa ugu qiimo badan inay kuwaa noqdaan baa dhow buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh. waa marka zamanku fasaado oo dhulku fasaado oo mujtamacaadku ilaa aad ilahay kala kulmayso o dhimanayso subxana wa tacala. saasoo kale way macna. meesha walaalayaal inagu aan u wadniyo arrinta qaabkaan u fahamsanaya qaabka u taalla way kala tahay. ruuxu waxaa la doonayaa diintiisaa la doonayaa wax walba inay kala qaalisanta. adduunyada gad, naftaada bixi, xoolahaaga bixi, wax kastoo qaali kugu agtaada bixi, laakiin diintaada ha badbaado. innaga laakiin see way xaalkeen diinta gad, yani waxa weeyaan naftaada gad, laakiin maxaa doonaysa? xoola doon baynuna taas dollar baa la doonayaa, guryaha la dhisanayaa, gaajadaa laga baxahayaa, waa la il baxahayaa. maxaa intaas loo maraya? diinta laga tago. diinta laga tago waxa waaweyn ma ummadiina waxba banaa kolley jannada waa iska gelina garantii waay. marka waxba aan laystay hor garantii ma yaan khaldan. diintaada wax kaaga qalisan ma jirto. diintaada ku mitid ilaa heer ay kula gaadho diintaadu inay dadku dhan aad uga dhex bacdo si kale haddaad ku hayso wey. bedelkii aad gaalo iyo bulshooyin fasaadsan aad la dhex geli lahayd oo fasaadin oo khatar geli lahayd duurkaas intaad xayn tabcato la gal. waa markaan bulshada waxba ka qaban karin fasaadkana isaga cabsanayso. oo fasaadka ka weyn maxay tahay? carruurteeni hadday fasaadayso oo dumarkeeni fasaadaya oo inagii khatar ugu jirno oo aynu milmayno. xataa inaga maanta nairobi joogaan iska warhayno, iska dhaaf kuwa maraykan iyo yurub iyo reer galbeed iyo australia tagay iska dhaaf. inaga nairobi joognaay qoysaskeenna iyo carruurteenna iyo waxa ka jira xaafadda isliimiyaad ogtiin ya ma taqaanaan. intiina badan waxa weeyaan war badan ma haysaan. laakiin cinda juhaynata alkhabaru lyaqiinu war xaqiiqaa reer juhayna agtoodu yaallaan. xaqaa'iqdaa jirta inaga qarsoon oo ay keenayso bulshooyinkan gaalada lagu dhex noolyahy. iska dhaaf kuwo kaloo sii fogaaday warkooda iyaga macna. waid ictazaltumuuhum wadkur xuslabiyo ama waid waktiga ictazaltumuuhum aad ka dheeraateen iyaga iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeen ila allaha alla mooye. meesha waxaad ka fahmaysaa inay allana caabudahayeen kuwo kalena la caabudi jireen. saas marka alla kamaydaan tegine laakiin kuwii kale la caabudayeen baad ka tagteen. fa'wuu dunma marka ama u hoyda ilalkahfi godka xaggiis yanshur ha fidiye lakum idinka rabbukum rabbigiin min raxmatihi naxariistiisa qaarkeed ha idin fidiye. wayuhayi ha diyaariye lakum idinka ha idin diyaariye min amrikum arrinkiina xaggiisa mirfaqan waxaad ku intifaacdaan. ooma waxaad ku intifaacdaad waaye haddaad gaal iyo gaalo dhulkeeda isaga tagto. ilaahi subxaana wa tacala intifaac buu meel walba ku dhigaya. waman yuhaajir fii sabiili illah yajid fi lardi muraaqaman kaiira wasaca buu ilah yidhi subxana wa tacala. oo ballanqaad adiga intaad ilaahay tala saaratood ku kalsoonaato dhaqaaji wixii ka dambeeya ilahay waa ku maamulay subxana wa tacala. saas imisaa ka soo tagtay oo maanta ka kaaftoontay oo ka maaranta adduunyada uga maaranta oo ka xoolo badan gaalkay u shaqaynayeen iyo dulligiisii maanta macnaha waxa weye nolol ay u madax bannaan yihin haysa. haddana isla markaa diintoodii iyo reerahoodii iyo carruurtoodii ay u ladan yihin waa baniyi. saasuu ilahi subxana wa tacala ballan qaaday. laakiin waa goorma? markaad ilahay dartii uga timaado oo aad kalsoonida qaadatay wy macna. watara ashamsa ida talacat tadaawaru can kahfihim data alyamiin waida qarabat taqriduhum data shimaal. qisadii baa lasii wadaa nimanka dhalinyarada. godkii bay galeen. godka markay ku dhex jiraan xaalkoodu seebu ahaa. qisadeedu bu ilahay noo wadaa subxana wa tacala. watara waxaad arkaysaa ashamsa qoraxdii baad arkaysa
idaa goortii talacat ay soo baxayso tasaawaruu iyadoo leexanaysa can kahfihim godkooday xaggiisay ka leexanaysa daatalyamiini dhanka midigta iyadoo uga leexanaysa wa idaa goortii qarabad ay dhacaysana taqriduhum iyadoo goynaysa iyagii bay goynaysa daata shimaali dhanka bidixdaa bay ka goynaysa walxaal bay saa qoraxdu yeelaysaa hum iyagu fii fajwatin meel bannaana ay ku dhex sugan yihiin oo minhu godka ka mid meel bannaan oo godka ka mid ay joogaan dalika midkaas min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisii buu ka mid yahay iyo astaamihiisa waaweyn man yahdi llahu ciduu alla hanuuniyo fa huwa isaga keligiibaa almuhtadi midka hanuunsan ah waman yudlil cidii uu lumiyana falan tajida heli maysid lahu isaga waliyu amri murshidan oo hanuuniya sokeeye iyo cid hanuuniso wax la qabata heli maysid way macna nimanka dhalinyarada ah waxaad arkaysaa buu rabbileeya godka markay ku jiraan qoraxdu markay soo baxayso waxay ka qabanaysaa oy godka ka maraysaa dhanka midigta markay dhacaysana waxay ka qabanaysaa oo ay ka maraysaa dhanka bidixda godkana meel bannaan oo gudihiisao godka ka mida bay ku jiraan halkaasay ahaadeen waa hariib waxaa lagu fahmi karaa sida ibnu kathiir uu leeyahay godku sidiisaba markuu meel ku yaallo midig iyo bidix ma kala leh ila maxaa yeelay bidixda iyo midigtay waa ashyaa nisbiya la yidhahda godku marka waxaa laga fahmayaa aayadda inuu usii jeeday xagga waqooyi usii jeeday godka markaad xagga waqooyi intaad kaga timaado aad gelayso afkiisa aad kusii jeedo ayaa waxaa soo baxaysa midigta iyo bidixda adiga midigtaada iyo bidixdaadu markaa uma imaanaysa godka marka wuxuu usii jeedaa waqooyi waad soo gelaysaa dhanka midigta kaa qabanaya qarkiisa midigta kaa qabanaya qoraxdu markay aroortii soo baxaysay ku dhacaysa markay galabtii dhacaysana waxay ku dhacaysaa dhankiisa bidixda kaa qabanaysa ku dhacaysa saas macna haddii uu sii jeedi lahaa koonfur usii jeedi lahaa cagsi bay noqon lahay sooma hadduu qorax dhac usii jeedi lahaana qoraxdaa si toosa u geli lahay markay soo baxaysana maba aad taabateenba hadduu qorax ka soo bax u jeedi lahaana markay soo baxaysay toos u geli lahayd galabtiina kuma dhacdeen sooma waxay uun ku imaan kartaa inuu godku usii jeeday waqooyi usii jeeday markaad ku sii jeedo aroortii markay soo baxayso qoraxdu waxay kaga dhacaysaa gebiga midigta abay kaga dhacaysaa kii bidixda aana hooskiiba haya uma taabanayso sooma galabtii markay dhacaysana waa cagsi oo dhankiisa bidixdaabay ku dhacaysaa midigtiina hoos galbeedkiiba haya oo ma ku dhacayso macna saas saa markay yihiin meel bannaan oo godka dhexdiisaabay ku jiraan qoraxina ma qabanayso bal cajaa'ibtan arag qoraxdii ilaahay uu maamulahayay nimankaa dhallinyaradaa markay kor marayso aroortii markay soo baxayso iyo subax iyo markay galabtii dhacayso yacni godka dhinacyihiisay ku dhacaysaa si ay iftiinkana u helaan manaafacaadka qoraxda bini aadamku u baahan yahayna u helaan hawadiina u helaan laakiin qoraxi ma qabanayso iftiinkeedii waa helayaan laakiin ma qabanayso maxaa yeele hadday qoraxda ku dhacdo jidkooda way yani waxa weeye ma xamili karaan qoraxdiibaa marka laga ilaalinaya mar dhankana laga marinaya marna dhankana laga marinaya ilahay baa maamulaya subxana wa tacala saas wey macana ayib arrinkaasi waa aayad ilaah niman dhallinyaraa oo god galay oo godkii ku jira qoraxdii ayna qabanaynin meeshaasi yani waxa weeye muddo intaasoo boqoloo sanaa ku jiraay dalika min aayaati illah ilaahay aayadihiisa cajabta badan bay ka mid tahay cidduu ilaahay hanuuniyo unbaan hanuunsan ninkuu ilaahay baadiyeeyeyna cid hanuuniyo u heli maysa sooma nimankaa dhallinyarada maxaa xaalkaasi ay u sameeyeen hanuun ilaahay waa qayb ilahay rabbi baa subxaana wa tacala u qaybi iyagu saasay sameeyeene kii ilaahay hanuunkiisa ka qadiyo wax walba haddii la tuso oo wax walba loo sheego waxba geli maayo kaas saas man laanna ilahay baa hanuun ka qaybinaya subxana wa tacala hidaayada tawfiiqda ilahay baa wa taraa waxaad arkaysaa ashamsa qoraxdii nebi maxamedow ama ruuxa lala hadlayo mukhaatabka iska dheh wa taraa waxaad arkaysaa ashamsa qoraxdii idaa goortay talacad ay soo baxayso tasaawaru iyadoo leexanaysa can kahfihim godkooday ka leexanaysaa daata alyamiini dhanka midigtaabay uga leexanaysaa daata aljihati alyamiin yani jihada midigta ah dhankeeda ayay uga leexanaysaa waidaa goortii qarabad ay dhacaysana taqriduhum iyada oo goynaysaad arkaysaa daata shimaali dhanka bidixdaa iyadoo ka goynaysa saas macnaa dhanka bidixdaa bay ka goynaysa oo dee dhanka bidixdaa markay ka goynayso macnaheeda dhankii midigtaa hoos galbeedkiibaa haya
وقرح ما قولي سوي معنا تكلم واسدو كل تار صبر والحال بي سدا يهين قرح ساي سوينيسا حالهم إياه في فجوة مال واسعة أي كسوغيهن أو منه قدك كمل مال واسعة أو قدك دحديسا أي كسوغيهن برب الله سبحانه وتعالى ذلك أرنقاس من آيات الله إله آياته سيكمله أستامه سواوين قدرته سقطسيه من يهدي الله عدو الله هنونيه فهو إسقى أي المهتدي متك هنوصنا ومن يضلل روح النمينا فلن تجد هلي ميسد له إسقى وليا ولي ميسد مرشدا أو هنونيا عدك لو قانوني كرتمجد خلق القرآن هذا سوكاته وإلهي هنونك سكاقة دي هنونك ومحيا كما هنونك كران معنا ساس وتحسبهم قصة دي بالسيورة وتحسبهم وحد لينسان من كان يرضى أيقاظا كوا سوتشيدا والحال هم يقر رقود كوا هردائيهم ونقلبهم ونقدقديننا ذات اليمين ملك تجهاد هذا تو صاحبك يعني دنك ملك بنرغينا وذات الشمال يدنك بدحنا ونرغينا وكلبهم أيقودين باسط ويكفدي ذراعيه لمدي صدودن بالوسيد ماشى يعني أفافك أما الدرسانت يعني ماشى أفك هراء قدك أفكي سهولة أي وسيد كل هذا ماشى سونا يعني تشييه سامر بمدي سكفدي لو اطلعت هذا ضالعت عليهم نمنك بل يرى كركور هذا ضالعتو أركتو لو الليت واتيتن منهم حق ولا تكتشفني فرارا عرب ولم لئت والق بوحني منهم أيها حق ولا الرعبا أرجح بعد كبر حسامي اسمه كرتيد وهذا مركبة على هذا وحكي يساوي معنا معناها الوحوي لمن كبل يرضى مركب يقولك كوتشيران سا مركب وعرته واحد سلير هو سوتشيران حقيقة أنا وأردان سيكون عكرت مرة إنهم بكلا هيام بالمرنة إنها كلا روح إنها توكل يوم سوتشي تزومت سوى أردان بطبع قرب أساس إن سوتشيران بيدمون يساوان أردان وأنه قد دينا يوم مرنا بنك بيد حدا بالوسحينية مرنا بنك بيد كتاب بالوسحينية والروح يسقي بمقامبا ولا ركروحي لأنه وحوي الشيء هدو عرض مدة دير هايو ملكو بعد كده تشيركو هدو هايو ويعوني سازما ولا ركروحي يا سأل معناه عرض وحويه طيب سيدي هذيك وهردوه كانوا دير عمرك كده يا شباب صار بنك كده يسر رقميس ساسا إلهي ركروحي سبحانه وتعالى طيب ورب الله سبحانه وتعالى أيجي أي وتينا ماشى عفافك أما مئه يريد هره أيو معناها اللغيه سكوفت صدي ربما يسيو ماشى كوفت صدي سوى هالكسجو ماشى علماء وحيدنا ضد أخيارا نكي الله صاحباي أخيار نمدو كفايدستا يمكن بل يرد عكشاي نمدو أي قودي بحث العصي أي أو تقالان قيمة الحديث أي أحدنا أي قنسيقوني الله صوت معي تاي أخيار بالله صاحبي أخيار بنا صاحب أخيار تيجدك ولا نكسن لا صاحبي دودا روح مجع في عنا واسيسا شرف يعيزنا وكلس ولا جاء حيانا وحبوك لك معك قاطع معنا ساسيا أي قولين هالكاس وكسوجين رب الله سبحانه وتعالى هدات في الله هيدو طالع الله الحال كود مركو سيدا يعني وانك اللي يردا اسمها ينكر تيدا والعربي أرجع احنا واد اسمي محل جودا هيبد بالله صار سبحانه وتعالى هيبت وحال الصاري الشهادات كله فتبع هذا نسين كريم أرجع انتقل بين وكبل سماء يعبسي أتعرس تاسع معناها أغلق كل ميزاب ربنا سبحانه وتعالى وحال أنت اللي نوصل الشيء وكشيء إلا كشيء كريم معنا ساسي وتحسبه واحد ملينسا أيقاظا كوسو تشيداد ملينسا والحال هم يقول رقود كوه ردائهم ونقلبهم ونقدقدينا ذات اليمين دنك مدكتا وذات الشمال دنك بدحلا تبديل إذا أصاحبك يتملك تصاحبك جيهين كزنور كروينا وكلبهم أي جودينا باسط والحال كلبهم أي جودينا باسط ويكف ديي أما في دينا يدراعيه لودي سيدون يتشيه في دينا بالوسيد ماشى أفافك أما يعني درسنت ماشى هراء يكفنا قدك أفكيسا لو اطلعت هذا ضلعت عليهم تشهد هذا ضلع الله لو اللي توجت سلحي منهم حقه فرارا عرب ولم لئت والق بوحين لها منهم حقود الرعبا أرجح بحسمله الرعبا أرجح يعني أرجح بحسمله بمعنى وكذلك سيدا سوكله ساء نسحنه كله أيام بعثناهم أصبحني ليتساءلوا سيء سوي ديا بينهم بحضر
qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay oo minhum nimanka dhallinyarada ka mid kam inteebaad labithtum nagaateen war intee baynu meesha ku jirnay qaaluu waxay yidhaahdeen qaarkood labithnaa waa nagaanay yawman maalin baa nagaanay maalin baynu meesha ku jirna hurudnay aw amase bacda yawmin ama maalin qaarkeed maalin qaar ka mid oo dhammaystirna way macna qaaluu waxay yidhahdeen rabbukum rabbigiin baa aclamu ogaansho badan bimaa labithtum nagaanshihiiniyo intaad meesha ku jirteen ee warkeeda taa inaga daayo wax ka muhiimsan ina geliyo fabcathuu dira axadakum midkiin dira biwariqikum lacagtiina la dira haadihi oo tan ila almadiinati magaalada xaggeedana u dira oo falyandur ha fiiriyo ayuhaa magaalada teebaa magaalada dadkeeda keebaa way macna askaa daahirnimo badan dacaaman xagga cuntada oo falya'tikum markaa ha idin keeno birisqin risqi ha idinla yimaado minhu kaa ha idinka keeno kaa cuntadiisu xalaalnimada badan tahay ha idinka keeno risqi waliyatalattaf hana isqariyo oo ha farsamaysto walaa yushciranna yuusan ogeysiinin bikum idinka axadan cidna yuusan idin ogeysiinin nimankii dhallinyarada aha muddo dheer markay meeshii ku jireen oo dib laga sheegi doono ayuu ilaahay hurdadii ka soo kiciyey maxaa hurdada looga soo kiciyey inay iswaraystaan oo bal isweydiiyaan xaalkoodii waa kuwa iyagoo iswaraysanaya mid ka mid ah hadlo wuxuu yidhi war muddo intee leeg baynu meesha hurudnay qaar baa jawaab waxay yidhahdeen maalin baan hurudnay maalin waa meeqa sano 309 sano wey markaasuu leeyahay maalin baan hurudnay maya waa maalin maba dhannaba waa maalin qaar ka mid waxay leeyihin culimmadu yani waxay seexdeen subaxnimadii bay godka galeen xilli ay galab tahayna waa soo tusay marka waxay isleeyihin war maalinku ma wada dhammaystirnay hadda weli ma dhicin qorax qaar baa weli laaban ma ee waxa weeyaan dhan bay u badatay oo maalin dhan bay ahayd waxay ka doodayaanba waa inta sideedaba macnaha waxa weeyaan haddii yani waxa weye tii ilahay intay kuu timaado aan qabri gasho adduunyadan hadda inugu dheer ma dheeraanayso samada arag markaad hurdo habeenkiisoo kulama gaabin saas haddaad seexato 24 saac haddaad hurdo oo lagu yidhahdo inteed hurday wallahi nusu saac baan u malayn badi saas marka yani hurdadaasaa ilahay geliyay subxaana wa tacaala ayagiiba marka saa u dooday waxay markaa yidhahdeen qaar ka mid ah waxay yidhahdeen markay ku doodeen war heedhe ilaahay baa garanaya muddadaynu meesha ku jirnay taa intaad inaga daysaan wax inooga muhiimsan baa jireen waynu gaashaysannahay bal dad inoo dira nin iyaga ka mid a la yidhi hala diro lacag ay wateen oo markay godka galeen ay la galeen oo fida ahayd oo lacagtii waagaa waddanka laga isticmaali jiray ah bay weli godka ku haystaan waxay isleeyihiin marka mujtamacii iyo dawladdii iyo wixii baa weli dhisan bal min innaga inaga mida diro oo lacagtana usii dhiibo oo magaalada intuu tago oo magaalada dukaamadeeda fiiriyo ka cuntadiisu ugu xalaalsan tahay waxa inooga soo gado isla markaa haddana magaalada markuu tagayo ha isqariyo waliyataladdaf macnaha ha farsamaysto oo yaan la dareemin yaan la fahmin saas macna cidna yuusan ina ogeysiinin oo ninna yuuna arrinkeenna u sheegin isaguna ha isqariyo yaan laga fahmin arrinteenna yuunan caddaynin oo cidna yuusan u sheegin cuntadana haynoo soo iibiyo ha soo noqo taladaasa inooga muhiimsan intee baynu meesha ku jirnay bal go-aanka ayna sii horto sidii baa la yeedhay marka wakadalika sidaas oo kale sidaa aan u seexinay oo kale ayaanu bacatnaahum u soo bixinay yacni sidii ay ku seexdeen baa lagu soo saaray waxaa laga wadaa ayagoo fayow oo waxba qabin oo dhammaystiran bacatnaahum ayaanu soo bixinay bu rabbi subxana wa tacala maxaa loo yeelay liyatasaa'aluu inay isweydiiyaan daraaddeed baynahum dhexdood qaala markaa wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay oo minhum iyaga ka mid ah wuxuu yidhi kam inteebaad labithtum nagaateen su-aashaas soo jeeday inteebaad hurudeen qaaluu waxay dhaheen labithnaa waa nagaanay yawman maalin baan nagaanoon hurudnay aw amase bacda yawmin ama maalin qaarkeed qaaluu waxay yidhahdeen rabbukum rabbigiin ayaa aclamu ogaansho badan bimaa labithtum intaad nagaydeen oo meesha ku jirteen ilaahay baa og nagaadigiinni ilaahay baa og ee fabcathuu dira axadakum midkiin biwariqikum lacagtiina la dira haadihi ee tan wariqa wax le lacagta fidada lacagtiina la dira ila almadiinati xaggii magaaladana u dira magaaladeennii u dira taqanin falyandur ha fiiriyo ayuhaa magaalada teeda askaa baahirnimo badan oo xalaalnimo badan dacaman xagga cuntada ayuhaada magaaladii buu wada laakiin dadka magaaladu ka wada dadka magaalada ee cuntada iibinaya dukaamada haysta ninka cuntadiisa ugu xalaalnimo badanta
أزكى الصائل لغو فسيرا في عن ابن جرير ابن كثير ساسا رجحيا فلينظر فيري أيها مقالة تيبا أزكى وقود ظاهر لمبضن أوحلا لمبضن بعاملك حق عنتد فليأتكم هايدين ليما دو هايدين كانوا برزق عنتها هايدين كانوا منه عنتدي سوغو حلال لمبضن تي حقي سايدين كانوا وليتلطف هنا إسقريه وحفر سميستو يا سعد كي سنة لقدرين ولا يشعرن يوسن إذن أغيسين بكم إذن كأحدا عنا يوسن إذن أغيسين استغنى يا الله قم مقلن يا أنا لقدرين من هنا إسقريه ساسي قتل ينمعنى ما حد سوقرين إذن إنهم يوم قلبي هرئهم بيموديا إنه ولي ماشي تشوغان إنهم يوم إن يظهروا هدي دال عذاب عليكم دشين هدي دال عذاب إذن كور هلان يرجموكم بيحبا إذن كدليا أو أما سيعيدوكم وإذن علميا في ملتهم دين توري بيدي بدين كعلمي ولن تفلحوا من الليبان إيسان إذن مركاسي أبدا وليقين الليبان ميسان معناه الوحوي حدي وحدي سوق قرينينا أو وركينا أو قرينينا نمانك أي نكسو تغنية بالشدية دولدي ماشا كدسني ذا قال الله حدي إلى قور هلان هذا لومت إنه يتقح إنه قد دلان والسيء نوع قاضها يانا إنه ساكو تغنو iyo inaynu intaynu adkaysan weyno diintoodii ay dib inoogu celiyaan aan ka soo tagnay haddaynu diintoodii dib ugu noqonnana weligeen liibaani mayna leeyahay saas ninkii gaalnimo galay oo diin ilaahay iyo iimaan ka tegay iyo khayr maxaa liibaan ugu taal adduunna liibaani maayo aakhirana liibaani maayo saas ma liibaani wuxuu leeyahay sheekh maxamed amiin shawqiiti calayhi raxmatullah kitaabkiisa awdaa'ul bayaan wuxuu leeyahay waxaa laga fahmayaa aayadda haddii gaalnimo lagugu qasbo in aad gaalnimada ku dhawaaqi karto adoo qalbigaagu iimaan ku jiro oodan gaaloobaynin ummadda nabi maxamed bay khaas ku ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh wadan soma illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan ummaddan inay khaas ku tahay oo ummadihii kale aan loo ogoleen ama hal lagu dilo ama ma ahe iimaankaaga hayso laakiin ma muujisan kartid gaalnimada haddii lagu dilaya xataa laakiin diinteeda waxay tiri haddaad isu cabsatood naftaada u cabsato gaalnimada muujiso si aad u fakato laakiin qalbigaaga iimaankii ha ku xasilaado oo qalbigiisan isbedelin taasi inay ummadda khaas ku tahay bay kutusaysaa wy macna innahum iyagu in yadharuu hadday daalacdaan calaykum dushiina oo idinka war helaan yarjumuukum dhagax bay idinku dilayaan aw idin dhagaxaynayaan oo dhagax bay idinku dilayaan aw ama sircibay idin dilayaan wy macna aw ama sayuciiduukum way idin celinayaan fii millatihim diintoodii bay dib idinku celinayaan walan tuflixuu mana liibaanaysaan abadan weligiin idan markaa walan tuflixuu mana liibaanaysaan idan markaa oo diintooda ay idinku celiyaan abadan weligiin liibaani maysaan taas macna cabsidaas marka le yani waxa weeyaan gaal waa inuu ama diintiisii kugu celiyo ama ku cadaadiyo labada kama dhaxayso laakiin inuu ku yidhahdo xor baa tahay diintaada saa doonto u wado war jira ma haddaynu moodno salaadan iyo yani waxa weeyaan ayn damba ka lahayn oo nidaamkooda iyo dawladooda aan taabanaynin xor baan nahay baa lagu leeyahy aadaankana lagama maqli karo waddada masaajidka hormarta xataa allahu akbarta banaanka uga saari karaa haddana wuxuu ku leey sheekhow xorriyaan ku haysanaa dhulkiiyo dagaalade seen uga soo tagnaa ay xorriyadooda hayso allahu akbar ba haddaan banaanka laga maqli kari saas macna wakadalika sidaasoo kale ayaanu actarnaahum sidaa aan hurdada uga soo ficnay oo kale ayaanu actarnaahum daalacsiinay dadkii baan daalacsiinayna calayhim nimanka dhallinyarada korkoodaan daalacsiinay dadkii baa la tusay maxaa loo tusayaa dadka liyaclamuu inay ogaadaan daraaddeed dadku inay ogaadaan anna wacda allahi alla yaboohiisa uu bactigiiyo in laysa soo saari doono yaboohay xaqun inuu xaqiyo taa inay ogaadaan wa anna asaacata qiyaamadiina laa rayba wax shakiya fiiha dhexeeda inuusan ahaanin inay ogaadaan id waqti ayaanu soo saarnay ama id waqti inay ogaadaan yatanaasacuuna ay murmayeen baynahum dhexdooda amrahum nimanka dhallinyarada arrintooda ay ku murmayeen iyagaa is haysta faqaaluu markaasaa waxay yidhahdeen ubnuu dhisa calayhim korkooda dhallinyarada korkooda waxaad ka dhistaan bunyaanan dhis rabbuhum rabbigood baa aclamu ogaansho badan bihim iyaga qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii halabuu adkaaday ama reeyey calaa amrihim arrinkooda korkiisa nimankii u reeyey ayaa waxay yidhahdeen lanattakhidanna walle waanu samaysan calayhim nimanka dhallinyarada korkooda waxaanu ka samaysanaynaa masjidan meel lagu cibaadaysto
nimankii dhallinyarada waa la soo saaray, hurdadii baa laga soo kiciyey, bannaankaa loo soo bixiyey, xikmadda loo soo bixiyey mid waxaa la yidhi bal horta iyagu inay sheekaystaan oo ay isweydiiyaan. xikmadda labaad ayadana rabbi wuxuu yidhi waanu soo saarnay, waxaan daalacsiinay dadkii, waxaanu daalacsiinay macnaha dadkii baa la tusay. oo macnaha waxaa laga fahmayaa ninkiisu u socday magaaladii markuu yimid, magaaladii wuxuu keenay lacagtii u watay. lacagtani waa lacag 300 oo sano ka hor la isticmaali jiray, soo wax qariib ma. ninkii uu horeeyay uu geeyay wax igaga gadba, wuxuu leeyahay xageed war ma kansi baad heshay wax duugan meel kuugu duugan ma heshay, maxay tahay waaba yaabay, wali suumido warkii la heliyo laga warhel. sidii baa waxay ku dhacday marka godkoodii iyo iyagii bay la soo arko. quraanku intaas ugu gabagabay maxay markii dambe ku dambeeyeen, miyay soo baxeenoo ma bannaankay u soo baxeenoo bulshadii bay dhex joogeenoo bulshadii baa iimaan qaadatay, ma meeshii bay ku noqdeenoo kii ka yimidna intuu godkii galay bayba meeshii ku dhinteen. wax intaa ka dambeeyo nimankii dhallinyarada xaalkoodii ah qur-aanku ma sii faahfaahin. soo inaguna intaanaa kaga hadhna ma mise qisaska israa'iiliga kutubta qorhayaan baynu ku wareegaysanaynaa? macno weyn male. eygii baa magaca lahaa iyo wiilashu intaasay ahaayeen iyo yani wax weeyaan maaragtay wuxuu ahaa madaxweynihii waagaa jiray magacaasuu ahaa iyo dhul hebel bay lahaayeen iyo godkii halkaasuu ku yaallaa iyo maxaa macnaa ku jira? maxnaa kuma jira. saas daraaddeed qur-aanku waa ka gabsan, halkaasaa lagaga hadhaya marka. rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu leeyahay waan dadkii baan tusnay oon daalacsiinay si ay u ogaadaan dadku ilaahay yaboohiisu inuu xaqiiqo. markan dadka la tusayo nimankan dhallinyaraha ee godka ku jira la tusayo, xikmadda ku jirta waxay tahay dadkan la tusaya waxay yihiin dad ka muransan ilaahay inuu addoommada soo saari doono. way ka doodsan yihin war mar la dhintay oo la baaba'ay oo carradu ku cuntay kadib see loo soo baxaya, see baa laysu soo celin karaa? murankaasaa meesha yaal. qoladanaa la doonayaa ilaahay yaboohiisii ahaa inay qiyaamo jiri doonto, laysa soo celin doono, laysa soo noolayn doono, wax jira inay tahay baa daliil iyo burhaan la siinaya. burhaankii muxuu yahay? bal nimankan dhallinyaradaa fiiriya, 300 iyo ziyaado sanay meesha ku jireen, haddana waa kuwa soo kaakacay iyagoo nool oo sidoodii ah. soo markhaati cad maaha ilaahay yaboohiisa inuu idin soo noolayn doonaa? soo markhaati uma daliil cad. liyaclamuu ana wacd allahi xaq. saacadda iyo qiyaamaduna inayna shaki ku jirin inay ogaadaan daraaddeed marka ay doodayaan oo dhexdooda isku haystaan arrinta dhallinyarada. oo maxay yidhahdeen marka? waxay yidhahdeen markay dhallinyaradii arrintoodii ogaadeen iyo godkii iyo wixii, waxay yidhaahdeen dushooda waxaad ka dhistaan dhismo, yani godka xidha miya saas ka dhe ubnuu calayhim bunyaanan, godka afkiisa ha la awdo. saasay mufsiriintu ku fasirayaan, dushooda dhismo ka dhisa. rabbigood baa nimanka dhallinyarada arrintooda u ogaansho badan eh. waxaynu ka ognahay waa iska yar. taariikhda waa la hayeyo 300 sano niman dhallinyaroo la waayey inay jireen waa la hayey. nimankiibaa intaasoo muddo intaa le kadib baa soo baxay. taana marka la yaab marka dhismahan ka duldhisa arrinkoodana ilahay u daayay. waa loo isku qabsada marka sida ka muuqata qur-aanka daahirkiisa waxa weeye inay isku qabsadeen. godkiisaan ugu talinaa, meeshiisaan yaallaa. qolaa marka u adkaatay, qoladii ku xoog badatay ee u raysay baa waxay yidhahdeen dushooda waxaan ka dhisaynaa masaajid, meel lagu cibaadaystaan ka dhisayna. saas leanna nimankan arrintooda waa arrin aan caadi ahayn, waa arrin aan caadi ahayn. wadaadadeennu shaygay awliyanimada ku qaadan jireen arrin ka khatarsan wey. soo xoolaagii awliyanimada lagu qaadan jiray way ka khatarsantay. saas daraaddeed caadi ma aha nimankan dhallinyarada arrintooda ha la barakaysto. saasaa soo baxday, ha la barakaysto. si aan u barakaysanaynaa meelaan ku cibaadaysanno waa inaan meeshii ka dhisanno. waa mida nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixihim masaajida buu nabigu salawatu rabbi wasalamu caleyh. yahuud iyo nasaaro allaha lacnado, nebiyadoodii iyo dadkoodii wanaagsanaa ayay qubuurtoodii bay masaajid ka dul dhisteen. lacnada ilahay ku dhacda buu nabigu salawatu rabbi wasalamu caleyh. saas ummaddan waa loo diiday hadday iyagu dhisanayeen diintooda ma ugu bannaaneen mise uguma bannaana. nebigu waa lacnaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. saas daraaddeed waxay ku tusi xataa sharcigii nebi muuse iyo sharcigii nebi ciise inaysan ku bannaanayn. teennana iskaba dhaaf warkeeda. qubuur cibaado lala aadiyo, masaajid laga dhisay iyo lagu khalweeye iyo barakaysi la barakaystay iyo warkeedu ma jiro macna. lacnad baa kusoo arortay midda iyada. wakadalika sidaas oo kale ayaanu actarnaa daalacsiinay dadkii baa la daalacsiinaya.
calayhim nimanka dhallinyarada korkoodii baan daalacsiinay waa la tusay macna liyaclamuu dadku inay ogaadaan daraaddeed anna wacda allahi alla yaboohiisu xaqun inuu xaq yahay yabooha uu yaboohay soo saarid in lassoo saari doono inuu xaq yahay wa ana asaacata qiyaamadiina laa rayba inuusan shaki jirin fiiha laa rayba shaki fiiha dhexdeeda inuusan ahaan taa inay ogaadaan id waqti yatanaasacuuna actarnaa ku tacalluji ama liyaclamu id waqtiga yatanaasacuuna ay murmayaan baynahum dhexdooda ay ku murmayeen amrahum nimanka dhallinyarada arrintooda ama waxaad tidhaha id waqtiga yatanaasacuuna ay murmayeen baynahum dhexdooda ay ku murmayeen amrahum ayaga murmaya arrinkooda oo arrinkooda muxuu yahay waa arrinta ma laysa soo saari doonaa mise laysma soo saari doona faqaaluu markaasa waxay yidhahdeen ubnuu dhisa calayhim korkooda bunyaanan dhis rabbuhum rabbigooda ayaa aclamu ogaansho badan bihim iyaga qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii halabuu adkaaday ama reeyey calaa amrihim arrinkooda dushiisa nimankii u reeyey wa asxaabu lkalimati wاnnufuud nimankii awoodda lahawe kuwii u reeyey baa waxay yidhahdeen lanattakhidanna walle waanu samaysan calayhim korkooda waxaanu ka samaysanaynaa masjidan meel lagu cibaadaysaanu ka samaysanaynaa tiradoodu intay ahayd nimanka dhallinyarada sayaquuluuna waxay dhihi doonaan buri subxana watacala ama waxay dheheen alaaatun waa saddex raabicuhum kooda afreeyaana kalbuhum aygoodii u yahay wayaquuluuna waxay yidhaahdeen oga dhahayaan khamsatun nimanka dhallinyaradii waa shan saadisuhum kooda lixeeyaana kalbuhum aygoodii u yahay rajman bay u leeyihin rajman ganid bilgaybi wax maqan ay ganayaan oo un hadal layska tuurayo meel aan caddayn lagu tuuray wayaquuluuna waxay leeyihiin qolo kale sabcatun waa 7 wa haaminuhum kooda 8 kalbuhum aygoodii uu yahay qul waxaa talaa nabi maxamedow rabbigay ayaa aclamu ogaansho badan biciddatihim tiradooda maa yaclamuhum mana oga nimankaa dhallinyaradaa ilaa qaliilun in yar mooye in yar baa warkooda haya ee falaa tumaari ha murmin fiihim dhexdooda arrinkooda dhexdiisa ha ku murmin ilaa miraa'an dood iyo muran daahiran oo muuqda mooye dood muuqata mooyaane muranka jajaca maya walaa tastafti ha fityo weydiinin fiihim nimanka dhallinyarada arrinkooda axadan ruux minhum xaaluu ka mid yahay kuwan kula jooga axad ka midana warkooda ha weydiin maxaa yeele maba garanayaan waxay ka ogyihiinba ma jiro macna ayib macnaheedu waxa weeye tiradoodii baa laga murmay oo waxaa loo qaybsamay 3 kooxood sida aayaddu ay leedahay 3 qaybood baa loo qaybsamay qayb ka mida dadku waxay yidhahdeen nimanka dhallinyaradii waxay ahaayeen 4 waxay ahaayeen 3 eygoodana afraynahayy 3 eygu 4 ku yahay bay ahayd qolo kalaad soo booda waxay dhahen war meehe 5 bay ahaayeen oo eygaa lixaynahayy 6 ku ah labadaaba ilaahay subxaana wa tacala meeshuu ka saaray waa hadal una iska garan yacni qaybka wax leela shayga maqan kaannaka meel aan kuu muuqanin adoo tooganahayo oo wax ku tuurahayo oo kaleeto miyaad la heli kartaa sooma rajman bilgayb waa un hadal aan xujo cuskanayn oo la iska ganay wey saasaa laleey macana labadaa marka waa la radiyey sooma ra'yiga saddexaadi wuxuu leeyahay oo dadka qaarkii soo jeediyeen war nimanku waxay ahaayeen 7 ahaayeen eygooduna uu 8 taa ilaahay waa ka aamusa sooma lama dhihin rajman bilgayb lamana dhihin waa sax haddii laga aamuso maxaa la yidhaha shayga taqriir baa la dhaha taqriir waa sugid saas daraaddeed baa waxay leeyihiin culimmada tafsiirka salafku waxay leeyihiin tiradoodu waxay ahayd 7 eyguna uu ku yahay 8 ku yahay aayadda lafteedana laga fahmay maxaa yeele labadii hadalay hore markuu ilahay meesha ka saaray tan wuu ka aamusay sukuudkuna waa daliilun cala sixa baa leeyahy inuu qowlkani sax yahay ayuu ku tusaya wy maana intaa markii la sheegay kadib ayaa rabbi wuxuu leeyahay waxaad tidhahdaa nabi maxamedow tiradooda ilaahay baa og rabbii aclamu biciddatihim tiradooda ilaahay baa og in yar mooye cid kaloo ogna ma jirto hadalkan maxaa laga wadaa tiradoodii waaba la sheegaye waxaa laga wadaa xataa shayga haddaad og tahay oo lagu sheego xataa waxaa fiican cilmigiisa inaad ilahay udayso subxana wa tacala oo tidhahdo allahu aclam tiradooda ilaahay baa og dad yar unbaana ka warhay cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray anugu waxaan ka mid ahay dadka yar ee og baan ka mid ahay ilaa qaliilumtaas anaa ku jira mu dhihi jiray oo wuxuu dhihi jiray 7 ahaayeen yani waxa weye eyguna 8 ku yahay
saasuu dhihi jiray ayadana macna wax way laga fahmaya nabiga waxa yidhi sallallahu alayhi wasallam marka hadoodin oo nimanka arrintooda ha ka murmin ilaa muran muuqda mooyaan muranka muuqda maxaa laga wadaa waxay leeyihiin muran fudud dood fudud oo aan tacamuq iyo isku kalifid iyo isdhibid midna ku jirin intaa uu macna hadda ka doodaysa taa uu ka dood oo macnaha sababtu wax weeyaan hadda in hadda laga doodo tiradoodu intee bay la eg tahay maxaa faa'iido ku jirta wax bay laga doolaysa tiradoodu intaasay ahay faa'iido camal oo ka ratimaysa ma jirto macna ama ma aha yani miraaga daahirka waa ina tirado rabbi a'lamu bi'iddatihim ayadu tasheekto tiradooda ilaahay baa yaqaan haddaad ka hadlaysa xataa intaa ku gaabs macna saas weeyaan ama kuwan maanta kula jooga ayaga waxba ha ka weydiinin balay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxba ha ka warsan maxay yeelay ma ay oga reer quraysheed iyo reer maka iyo waxba kama ay hayaan ama yahuuda iyo bulshooyinka kale waxbay ka hayaan laakiin waxay ka hayaan baadil farbayn iyo khuraafo badan baa ku jirta xaqiiqadii say wax u dhacday ma hayaan mar hadayna u haynin waxba ku warsan rabbiga subhanahu wa ta'ala saas weeyaan sayquluna waxay dhihi doonaan ثلاثة وإنك بالمرض رابعهم قال أفريانا ويا كلب ميقود ويقولون قولك وحيدي دون 5 تضو ويقولون وحيليه يرانا يا قولك 5 شوي سادس كل اللي حيانا وكلب ميقودي رجما بيقوليه قليل درتد بالغيب وحمق رأي قليا وحكا قرصون بيقليا هذا العين حجوهين بيسكتوريا ويقولون وحي يرانا يا قولك 7 تضوي والثامنهم كل سديديانا كلب ميقودي قل حضر ربي يعلم أغاش بنا بعدة تردد أغاش بنا ما يعلمه من أغا إلا قليل وحي رددك كم دموي طيب فلا تمارها مر من مركة فيهم تحدو ذي عرنكودا حكمر من إلا مراء مرا إيضاد ظاهرا أو موقتموي موقضاه اسكعدوا فضوضا لسد بيني قد شعر الله ولا تستفتيها في تيوي دين فيهم لمن كعب اليرادة عرنكودا تحدد أحدا روحنا في تيها ويدين منهم حالوا كمديا إياك وكون كمديا معنا كون مركا النبي قال لك صلوات ربي والسلام عليه ولا تقولن هدين لشيء شيء كلهن إني أرجو فاعل وانصمين ذلك أرنك غدا بالربا صمينتهم إلا أن يشاء الله إنه الله الدورة مويه وتكلمنا دوادك تمويه واذكر حس ربك ربك حس إذا قلت نسيت أضحى المانتو ما شاء الله إن شاء الله أضحى المانتو مركا حس تشيكوي معنا فيه وقل وحقا عسى وحامضا أن يهديني إني إحانونيو ربي إنو إحانونيو لأقرب متكدا وانشبدا من هذا كم رشدا حق هنونك يتصندا متكدا وانشبدا إنو إلهي إحانوني أيام مضوي معنا معناه الوحوي وحيليهين الروايات كاسي معناه وحوي السير كساروري كتب السيرة كساروري waxay leeyihiin nabiga markay u yimaadeen oo yiraahdeen waxaan wax ka weydiinayna niman dhalinyaro oo qisadoodu yaani waa hore dhacday buu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waan idin sheegi doonaa bari baan idin sheegi doonaa insha Allah dib uu halmaamay taasa marka la daba galo waxa la leeyahay haddaad shay doonayso waqti soo socdo inaad qabato hadhiin waan qaban doonaa insha Allah inaad daba dhigto mooyee taas insha Allah maxay adigu taladu gacan kugu ma jirto sabab ما لا إشكال مركز لنا وانقبض دونا سو إلهي إنه كوكا الميو الدورة وإلهي قرشيه ساس مركز سامة دوقة مركز إن شاء الله هو كلمة بركة الله وحي صوص على مركز كحل الله يسور إن شاء الله إلا الدورة فعلا ساس يعني نبي الله سيد حديث صحيحة كسارة نبي الله سليمان عليه السلام بخاري مسلم بحديث كوري هيا النبي وحي صلى الله عليه وسلم وحي قبل شريف بقول دمرة markaasuu maalin ku dhaartay wuxuu yiri caawa dumarkayga boqolkaaba waan isu wada mari boqolku mid walba way uur qaadi mid walbana nin mujaahido haliyay oo dagaalamay dhali doonta insha Allah diibu ka tagay boqolkiiba waa isu maray hal mid baa ka uur qaaday tiina ilmo kala dhiman bay dhashay oo dhameystirnay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam insha Allah haduu dhihi lahaa sidoo uu sheegay wada noqon lahayd rasuulku sallallahu alayhi wasallam سمعت إن شاء الله دولة بانور اسم دونتا إن شاء الله دبك وانا قد عدونا إن شاء الله وحسن هري دونا إن شاء الله وحسن سمين دونا إن شاء الله إن شاء الله هذا السيقان وحكا لك مرمى بانو هذيك أكون سورة هذيك نحوه أكون سورة بمحيب تسمع طيب سيقولون ولا تقولن هذه هذه أرهل مانتو إن شاء الله ذا أرهل مانتو مركا الحسوس تكذب كي كذب كي وإن شاء الله دي كذب كي
ساسا معنا لقى وضع أما مركب يعني وحوي اسحوستم إلهي سبحانه وتعالى ولا تقولن هدين لشيء شيء إني أرغب فاعل بانا متكي سميني ذلك أرنك غدا بري إلا أن يشاء الله إنه الله دون موياني وذ إله المشيئة سكحد موي واذكر حس ربك إذا قرتي نسيت هالمانتو وهالمان درتي أدوغتك إن شاء الله دي الله حس إن شاء الله دي كده بقوي مع مركب حسه وقل تفسير كلام والشرع كجودوين وقل وحاطر هذا عسى وحامضا أن يهديني إنه يهنوني ربي لأقرب متك دوان شبدا من هذا كان رشدا حق هنوك يتصلا وحلق وضع قصدا أصحاب الكهف آيذكر أو كخطرسا أستامكنوا كواوين معجزوين كخطرسا إنه إلهي إسيو أيه مدن طيب معنا وحق الدلالة إلهي قدرتي سير رسالة إذا تصد أي كتوسة يعني أي أقدم ده هاي قصة تصد أي كتوسة إذا المعجزين كي نبي اللي صلى الله عليه وسلم كون خطر سنة تلقي صدم أصحاب الكهف كساس معنا ولبثوا والنجادين في كهف قد كذا دحدي سواء كنا قادين 300 صدح بقول سنين أو سنة وازدادوا وحي سياسدين 9 سنة وسياسدين قل وحبذا النبي والله ألا أي أعلم أغاشبنا بما لبثوا النجاين شهدي انت ماشي كنا نجاين له ألا كريجي بوسنا غيب السماوات سموينك وحكمقا والأرض يضللك وحكمقا إلهي بايسكالي أبصر ألا أركي أغا أبصر أركي أغا به ألا وأسمع مقل أغا والله يا ما له مصنع من دونه ألا كسكو من ولي من أهيلية ولا يشرك ألا موداتشيو في حكم كيس دحديس أحدا عدنا لموداتشيو خلاصة دي بالله يوكينا وحا ليدين وكا بليرادا قدك وحا يكوبشيرين 300 سنة 9 سنة وسياسدين على قوضة قابك بني آدم كسندها وحساب صدو ومن قرحة يكون حرنته وسندها الآن إلانو ميلادي قليل هذا قرحة لو حسابيها قارنا بشا لو حسابيها وقابك إسلامي قاوي بشا يضيح يقعصنته labadoodu marka waa kala badan yihiino boqolkii sano ee shamsi ee qoraxda lagu xisaabiyaba waxa ka soo dhaxbaxa 3 sano oo hilaali ah oo macnaha qabarkii iyo dayaxa ayaa faariqa u dhaxay boqol sano markay tagtaba 3 sano u dhaxaysa 97 sano noqonaysa tanna boqol sano noqonaysa markay noqoto 300 oo sano meeqa sano ka soo dhaxbaysa 9 ma ka soo dhaxbaysa 300 sano markaa tiraahdo waa xisaabtii qoraxda markaa tiraahdo 309 sanana waa xisaabtii dayaxa iyo bishow wasdaadu 9 saasa laga wada macna Allah subhanahu wa ta'ala mudada meesha ku jireen waxyaalaha dhulalka iyo samaawaadka ku dhex qarsoon isaga alle arki oga oo maqli oga afal taajib macna arki oga oo maqli oga waxyaalaha ku hadlaysaan uu maqli og yahay وحالكينا وأركي أوجي وأبكى مقرصون الله سبحانه وتعالى ومصبنا من ألك سوكو عدقه اللسا حكم كيسنا ألا عدنا كما قيب قليل ولا موداتي حكم كيس كونك وحكومة معمولة ينا للا مودا وحال بعضا ألا للولا سبحانه وتعالى حكم كيس الشرع ألا للا مودا كونك الله لا مطليه عد ولا تليس مجرد الله سبحانه وتعالى أو لا كله sidoo kale xukunkiisa sharciga adoomada uu dajiyayna cidna kama qayb galinino baarlamaan iyo majlis tashriic iyo odayaal salaadiin ah iyo dawlad sharci dajiso xukun dajisa ilaahay ma sameeyo subhanahu wa ta'ala wala yushriku fi hukmihi ahad hal ahad oo galkar ma jiro faayid la ilaha illa subhanahu wa ta'ala saasi ma tayib walabithu waynagaadeen fi kahfin godkooda dhexdiisa waxay ku nagaadeen 300 sinina 300 sano wasdaadu waxay siyaasadeen 9 bay siyaasadeen marka bisha lagu xisaabiyo way dayax qul hadaba Allahu alle ayaa a'lamu ogaan shabadan bima labithu intay ku nagaadeen intay meesha ku jireen ilaahay lahu alla ayuu usugnaaday keligi ghaybu samaawaati waxa ku qarsoon ku maqan wal ardi dhulka waxa ku qarsoon ku maqan absir arki oga bihi alle wa asmi' maqli oga alle ma lahu masugnaanin من دونه ألك سكو من ولي عدوه اللسا ولا يشرك موداتشيو في حكم كيس تحديث أحدا عدنا إله إلا موداتشيو كما قيل قلي رب سبحانه وتعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم